أحمد عبد الرشيد كان واحد في أحمد مذوبين يمحان كل هذا بغيت على يا أدري waan gartay warkaasi war sax miya ugaas oo ay leedahay من قدم بيمويدين عبد الرشيد جان دمبلارك مهيو halka warkaasi yaa ku xaqiijiya ugaas waa war weyn oo saameyn leh أجل شيء كان نكسب أيوة كورنيلا هالكحبي حتى إذا عد ميديا وكيل كذا هيجي بابا كفارة أيوة قلبي على مريحان الطوبة أنا كان الطوبة ugaas cabdirashiid janan goor aad la hadashid oo aad hadal isdhaafsataan goorma kugu dambeysay markii doon uu ka tagay goormay ahayd ma xasuusataa taariikhda iyo maalinkaba maya taariikhda ma xasuusta laakiin adigu uu yaraa laba bilood waa ka soo wareeg markaas iskuukin dambeysay laakiin waxa la leeyahay daraad waxa lagu arkay Nairobi hotel Nairobi ku sugan buu joogay waa la jartay ninka sidii suuq oo kale ninka loo jartay la fiix xataa waa la shiida waan gartay marka waa yaad leedahay cabdirashiid janan way dileen ma cid baad farta ku fiiqaysaa ya cabdirashiid janan ma cid baad uga shakisantahay inay dileen lacalaba hadiiba uu dhintay cabdirashiid janan ma cid baad uga shakisantahay inay dileen hadiiba uu dhintay ها وابو عدي آدم بردو عالم حانكو على هونقلك سميين وعيدمانا ديري تفسيرات كلا واحد أحمد مذوبي آدم بردو على سو وزيركي قاشانديقا ما هين كينيا وزيركي قاشانديقا كينيا وي هي نينا بتسوقت هايسبو weerarku halkee buu ka dhacay ma Nairobi mise Dolow Nairobi buu ka dhacay Dolow yaa ku weeraray ka Cabdirashiid waan gartay waa war saameyn la ugaas ma isleedahay xogaa waa lagu degdegay in badan annaga samir iyo Cabdirashiid galan hadda waa lambar siyaasi oo gobolka ka magacaaban buu ahaa laakiin 180 nin oo reer gadaha maxaa ku raahooy wax nuuba kismaayo u jirooda ay ka wada hadlin ma garan laakiin Shabeelle ma xaqiijin karto ugaas inuu Cabdirashiid janan dhintay in dadka aad leedahay waa la dilay Axmed Madoobe uu dilay marka soo ma ahayn in laga warsugo ilaa inta meedkiisa leedin xaqiijinayo ama cid kale aad kala xaqiijinaysaan sidii dadku kala loo tartaray ninkan xagee meedkiisa laga arkaya waa la tartaray la fiisi waa la fiiqay waa war xaqiiqo ah warkan ugaas ninka dambeeyay ma weydiinaysid baa ku yiri taariikhda maanta qoro Cabdirashiid lama arkayo rag iyo ruux midna dambe waayahay warkan goormuudii soo gaaray in Cabdirashiid janan la dilay oo la jarjaray shala galab buu soo gaaray aniga yaa ku xaqiijiyay ugaas adoo raaliya nabad sugidda Kenya nin ka mid ah oo magaciisa ha sheegin yiri la ii xaqiijiyay arrintaas nin nabad sugidda Kenya xukumo iyo aadan barid ala iska kaashan Axmed Madoobe tafsiiraad ku bixiyay waayahay marka arrintan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo kala xog wareysatay oo ma u gudbisay maadaama ugaaskii ninka aad tahay dawladda federaalka wax xiriir amnihi waa kala go'aanay dawladda federaalka waan gartay dawlad hawiyaan u naqaanaa dawlad Soomaaliyeed uma naqaan hadaa doonto codkayga sar adiga waa diyoon doontaa kolbe laakiin dawlad Soomaaliyeed uma naqaanaa dawlad hawiyaan u naqaanaa anaga waan gartay hadii warkan uu xaqiiqo noqdo oo la yiraahdo Cabdirashiid janan waa la dilay oo warkan uu banaanka yimaado maxaa talaabo u xiga ugaas waxa ila maxaan ku wada gabadha futuuho nabadgelyada diray joogto way garanaysaa waxa ku xigi doono in badan baa samirnay waxa dawladda ku sheegayso dawlad ku sheego dalka gadgadanayso iyo Axmed Madoobe isku meel bay ka taagan yihiin arrinta gobolka Jilma